wixii khibradaan leeyahay waxa aan abaal ugu hayaa dawladihii Soomaalida aan la soo wada shaqeeyay tii hore ee rayidka ahayd waa la soo shaqeeyay Maxamed Siyaad Barrana waa la soo shaqeeyay isagoo aanba xukun kaba qabsan oo ciidamada Soomaalida chief of staff ah yaan sanad la shaqeynay arintaas waa sir warshada sigaarka ma aha intaan ka shaqeyn jiray warshadii isnaay bay ahayd warshadii sonkorta iyo mareerey taa warshada sigaarka inkastoo dad badan ku gafaan oo yiraahaan sigaarka galeyd awowgiiba u bixiyay war awowgay sigaar uma magacaabin umana bixin Maxamed Sheekh Cismaan oo wasiiriga horeeyay ah geed shimbirta galeydka la yiraahaa koonfurta aad baa loo sheegaa oo la yiraahaa waa bona fortuna ama waa good fortune hadduu ka soo horbaxo waa khayr badan iyo waxaad la kulantaa wayna ma laga yiraahdaa anigu galeydka markaan awowgay maxaa loogu bixiyay waxa la yiri markuu yaraa yu sawaxan badnaa oo qaylo badnaa oo dagaal badnaa magaciisa dhabtii Yuusuf buu ahaa anigu halkaas baan qiyaasta ka qaatay waa run waxa khibradaan anigu leeyahay meel badanna waa ka soo shaqeeyay shaqooyin badanna dawladda Soomaalida waa u soo qabtay laakiin wixii khibradaan leeyahay waxa aan abaal ugu hayaa dawladihii Soomaalida aan la soo wada shaqeeyay tii hore ee rayidka ahayd waa la soo shaqeeyay Maxamed Siyaad Barrana waa la soo shaqeeyay isagoo aanba xukun kaba qabsan oo ciidamada Soomaalida chief of staff ah yaan sanad la shaqeynay arintaas waa sir isaga iyo General Maxamed Abshir Muuse iyo Cabdirasaaq Xaaji Xuseen Soobo waaga arinta Djibouti baa taagnayd guddigu Cabdirasaaq oo Prime Minister sameeyay National Security Council yiraaho oo arrimaha Djibouti iyo NFD iyo loo sameeyay sidalagun baan guddida xoghaye ugu noqday maxaan Siyaad Barre maxaad Abshir iyo Cabdirasaaq niman wasaaradda oo badan oo raggaas hadda waa wada dhinteen Soobo wuxuu ahaa ninkii kulli aniga si gaar ah gacan qabtay wasaaradda gudaha markaa joogay yaana ku dheeraanay